weli dawladdu kuma aysan dhawaaqin xilliga tooska loo qaadayo imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka mana aysan sheegin xilliga sida tooska loo daafuri doono xarumaha waxbarasho gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho guryaha iyo goobaha la isugu yimaado waxa ay la circirayaan tiro arday ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo haddana kala duwan heerarkooda waxbarasho waxa intaasi si dheer in macallimiinta ay shaqo la'aan soo wajahday kuwaasi oo aysan garanaynin halka ay afkoodu aadiyaan ama talaabada ku habooneed ee looga bixi karo shaqo la'aanta ay qaadi lahaayeen balse dhamaantooda waxa ay ka war dhowrayaan waa xilliga tooska ay u bilaabi lahaayeen waxbarashadooda haddaba sidee ayay saameyn ugu yeelatay maamulka iyo macallimiinta goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho su'aashaasi waxa aan hordhignay Ustaad Cabdirasaaq Ibraahim Aadan British oo ah rugcada waxbarasho kuna guda jiray waxbarida muddo 32 sano ah qadka telefoonka ayaan kula xiriirnay waxa aan weydiinay saamaynta ay ku yeelatay xirnaashaha goobaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho marka runaantii waxbarashada Soomaaliyeed saameyn aad u weyn ayaa ku dhacday waxaan marka codsan lahaa in horta marka hore Ilaahay waxaan ka baryeynaa in cudurkan Ilaahay uu ka dulqaado ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo runtii ka codsan lahaa dawladda in iyaduna ay runtii waxbarashada bal ilgaar ku eegto maadaama goobihii kale la isugu imaanayay ay guud ahaan yihiin kuwa si caadi ah la isugu yimaado wallahi waa soo sano iyo ka badan ayaan waxbarashada ku guda jiray runtii waa wax runtii organization karo wax nagu cusub wax oo taariikhda galay waaye markaan ugu badnaano hal usbuuc oo ciid iyo 10 dambe oo Ramadaan oo baa la arki jiray oo dabiici ah laakiin hadda kasoo bilaabo 18 Maarso oo ah markii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka ilaa hadda runtii iskuulada lama aado looma shaqo tago waxa iskuulada si kala duwan yihiin kuwa private-ka ah ee badanaa ku noolaa lacagta yar oo markaasi ilmaha ama ardayda ay ka qaadaan kuwaasi ayaa saameynta ugu ballaaran ay sii yeelatay ma garatay ku sii yeelatay ahaan ardaydu aad u leeyihiin anigu waxay ula saaxiibaan goobaha aan ku leeyahay social media ama ahaato Facebook ama qaybaha kale isticmaalo waxay ku sheegayaan in ay guriyihii ku caadiseen in waxbarashada ay ka luntay in waxyaabo badan runtii ay dareemayaan oo culaysa ayna aad u xiiseynayaan in arki lahaayeen iskuulada oo mar kale irdaha loo furo ka sokow saameynta maamulka iyo macallimiinta ee waxbarasho gudaha dalka waxaa jira darawalo qaadi jiray ardayda iyo macallimiinta kuwaas oo iyana saameeyay xirnaashaha goobaha waxbarasho hawo nagu yeeshay oo sababtu tahay wax badan baa xiran jaamacadii naga xiran iskoolaadkii xiran maxaa tiraahdaa dugsiyadii kala xiran waxa xiran wasaaradihii waxa xiran aeroboortkii dabcan wixii aan maalintii heli jirnay waa waxun baa naga dhiman cudurka COVID-19 waa aafo ba'an oo saameeyay dunida inteeda kale sidoo kale waxa uu saameeyay ganacsiga iyo waxbarashada isku socodka dadweynaha iyo kulamadooda marka aynu joogno Soomaaliya wax saameyn ah kuma yeelanin dhaqaaqi ganacsi marka laga reebo safarada dibadda iyo gudaha oo ay sii dheer tahay xirnaashaha goobihii waxbarasho ee magaalada Muqdisho